أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلى الله على نبي الله عبد الله رسول الله خاتم النبيين والمرسلين محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم kulanti wanaagsan khayray assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kana waa qaybtii kale ee aan uga hadlaynay yajuuj majuuj idiin sheegay inaan uga hadli doono marka ay soo maraan hadduu ilaahay ku roon yahay webiga ama harada ama leega ama warta biyaha ee la yidhaahdo dabariya alcarabiga la yidhahdo dabariya isla markaana ka timid laatinka magaceedu yahay tiberia iyo yuhuudduna ay u taqaano harada tideray xadiiskan ah yajuuj majuuj baa soo mari doona kadibna kuwa kuwa dambe ayaa oran doona meeshan biyaha ku jiri jiray waa xadiiska ugu caansan ee soomaalidu maqashay hase yeeshee insha allah waxaan tusi doonaa cadeymo muhiima iyo sharaxaad laga booday oo dadka badanaa culimmada sheegaysa waa uun ay xafideen ma ayna baran waxa weeye macnaha ogaada cilmi markaad xafido iyo marka aad baadho ood adigu aqoontaada ku ogaato labay kala yihiin markaad xafido haddii taas ceeb ma ahan waxa weeye sidii aad ku baratay unbaad adiguna ku sii dayn laakiin wax dheeraad iyo fikir kale iyo maaragtay fikrado kale iyo baadhis kale ku darmaysid sidii baad usii dayn marka culimmadeenna badankeedu waxyaabaha dadka soomaaliyeed in yajuuj majuuj lasii daayo waqtigii nebiga sal allahu alay wasalam shakiga uga jira waa culimmada aan baadhin cilmigan ee iyagu say ahaydun ugu sii daayey laakiin inagu baadhis baan samayn doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo waanad ila arki doontaan kolka insha allah waxar kadib aan gelaynaa fariimaha yar kadib waxa weeye khayr horta marka koowaad waxaan u mahad celinayaa videogii hadda ugu dambeeyey ugu magac daray xaqiiqda yajuuj majuuj aad iyo aad baan uga mahad celinayaa dadka daawaday waxaanan aad uga sii mahad celinayaa dadka commentiga ka bixiyey ilaa inta 150 iyo googo yaa 100 iyo malaha 70 ku dhowaad yaa comment ka bixiyey hadduu ilaahay ku roon yahay sidoo kale maaragtay waxaa daawaday ilaa maalinkana hadda aan hadlayo oo ah 4 saac kadib markaan videoga duubay 3,000 iyo dheeraad kolka waa ilaahay mahadii idinka naftigiina commentiga akhrin kara hadduu ilaahay idin roon yahay maaragtay dad badanna si gooni ayaan ugu mahad celinayaa bal waxayr waxaan fiirinaynaa khiyaaray waxyaalahaas ay dadkaas soo qoreen yaan fiirinaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo kolka insha allah waan intusi doonaa dad badan ayaa hadduu ilaahay idin rooya fikri iyagay leeyihiin ku daray aniguna aad baan u jeclahay dadku inay fikiraan aad baan u jeclahay waana soo dhoweeyaa waayo anigu waxaan doonayaa inaad caddayn igu timaadaan hadduu ilaahay yidhaahdo maaragtay ma doonayo in maaragtay aan sidii qof indhala oo kale maaragtay idiin sameeyo kolka falaan idin tuso hadduu ilaahay yidhaahdo kani waxa weeyaan waa bogaygii hadduu ilaahay idin rooya khiyaaray commentigii maaragtay dadku ka bixiyeen okay qofkan la yidhaahdo waxaa la yidhi yuusuf xuseen okay wuxuu yidhi dadkan sheekow ama sheekhow aad sheegaysid waa dad caadi ah webiyada ma cabbi karaan wuxuu yidhi webiyada ma cabbi karaan see waaye aad baan uga helay yuusuf xuseen aad baan kuu salaamay iyo commentiyo kale ciidaa ka fara badan dhammaantood haddee waxa weeye dhammaantiin loof idinma saari karo raalli ahaada inta kuwa wanaagsan ee maaragtay taageere hawshayda intaan ka gaar ayaan hadduu ilaahay kuu rooy yahay taageero muujiyaa hase yeeshee waxa waaye inta kale dhammaantiin waad mahadsantihiin run ahaantii aad baan uga helay maskax furridiinna iyo sida aad u aragteen caddaymahan iyo waxyaabahan ayn tusay idinkoo fiiriye kheyrtan hadda commentiga bixisay maskaxdoodu quful ku xiran yahay oo sheekh umul soo xiray sheekha kale culimmada kale dariiqada soo xidhay culimmada kale soo xireen iyagoo qufulkii ku go-aynayo ima imaanayaan waxay imaanayaan iyagoo open mindeda ama maskaxdoodu furan tahay arkaya waxaan aan sheegayo okay waayo cilmi baaristan iyo waxaana wadaa waxa weeye wallaahi billaahi maasha allah waa first class waa kaalinta koowaad ee adduunyada nin kale isaguna comment ii soo qoray walaalkay waan u mahad celiyey commentigii waan u jawaabay isaga wuxuu yidhi
yajuuj majuuj saddex arrimood baa lagu fasiraa marka hore wuxuu yidhi daariel baaska aad sheegtay jidka macnaha labada buurood meesha idiin sharxaya daariel baas la yidhahdo dariyana dariyas baa la oran jiray wuxuu ahaa boqor ka mid a boqorradii boqortooyadii farisiinta gaar ahaan kuwii ugu dambeeyey soo ma okay wuxuu yidhi meeshaas waa qayb wuxuu kaloo yidhi shiinaha ayaa ay hadduu ilaahay idiin roo yahay la sheegay inay ku aasan yihiin waa labo ka saddexaadna wuxuu ku sheegay in adduunyada maaragtay labada cirif ee adduunyada ama labada daraf ay ka daloosho bilmatelin waa north pole iyo south pole si la dhaho arrintaa waxaa la yidhahdaa hollow earth theory daloolka dhulka fikirkiisa aad iyo aad baan u bartay aad iyo aadna waan u baadhay xataa nin musaariyaa jiray la oran jiray mustafa maxamuud raximah allahu oo video ka mid videodii ugu horreeyey yajuuj majuuj aan internet ka daawaday dhowr iyo 10 sano ka hor 18 sano meelahaas waxa weeye warbixintani aananu inta badan idin keenay ma ayna gaarin xataa dad waxaa jira xadiiska aan nabigu yidhi sallallahu alayhi wasallam carab halaag laa ilaha illa allah carab halaag baa usoo socda yajuuj majuuj sharta soo dhawaad darteed isagoo nabigu yidhi sallallahu alayhi wasallam yajuuj majuuj intaa in leeg ayaa maanta derbiga ka dalooliyeen zaynab binti waxash radiallahu canha umulmuminiin oo soo warisan ay tiri rasuulka allow miyaana la halaagi iyagoo dad wanaagsan ugu jiraan nebiguna uu yidhi nacam waa laydin halaagi markay xumaanta badato maantana waad ogtay xumaanta badatay waad ogtiin muslimka si loo xasuuqayo waxa xasuuqayo oo dhanna waa qabiilada aan ku eedeeyey aan ku sheegay inay yihiin yajuuj iyo majuuj marka saddexdaa fikir anigu dariel bas baan qaatay jidkaas maaragtay waana kaan idiin sharaxay si cad ninkaasina waa aqiray ana commenti baan u qoray waa mahadsan yahay waa aqoon-yahan shiinaha ayay ku aasan yihiin waa fikirka dadku u badan yahay adduunyada inay meel ku aasan yihiin okay waxaad ogaataan ilaahay subxaana watacaala gaalada markuu ibni aadanka gaal ka noqdo gaalada markuu ciqaabayo ciqaabtooda weyn waa aakhiro haddii alla subxaana watacaala adduunyada ku ciqaabo waa 6 bilood ama 1 sano oo testiya uu ilaahay doonayo subxaana watacaala liyarjicahu inay isaga us noqdaan hadday noqon waayaan maaragtay waa la haligaa sida ali fircoon oo kale bilmatelin suuradda la yidhahdo alacraaf suuradda 7 ee qur-aanka haddaad akhrisaan qisada nebi muuse iyo calayhi salaam iyo fircoon dhex martay ilaahay subxana wataala reer fircoon wuxuu ku imtixaamay waxa weeye webigii baa dhiig noqday rahbaa soo baxay hadduu ilaahay kuu roon yahay ayax iyo balaayo kale lagu sii daayay alla wuxuu dhahay subxana watacaala iyo imtixaano fara badan biroobkii waxyaalo fara badan oo ku dhaca alla wuxuu yidhi subxana watacaala waxay ahaayeen aayaatun mufasilaat aayaad cadcad bay ahaayeen oo ilaahay subxana u keenay waa lagu talagalay inay waansamaan oo ugu noqdaan kolka fircoon ba haddii saa loo teesgareeyey oo misaa loo imtixaamay oo markay indhabeeleen ay diideen inay hadduu ilaahay idin roo yahay kuwaana qaataan la haligay hadday qoladan kale yajuuj majuujna ilaahay subxaana watacaala hadda 3,000 sano ay ku dhowdahay inta la yidhi dhulka ku jiraan kuma jiri karaan dhulka waayo hadday dhulka ku jiraan intaa hadde waaba muslim waayo hadde waxa weeye yani waa sidii muslim oo kale wadda dembiga laga dhaqay waayo adduunyada lagu cadaabay sobow marka macnaha muslim oo kale ma aha laakiin waxaan idin leeyahay yani hadduu ilaahay idin roo yahay waa dad maaragtay adduunyada lagu ciqaabay marka ciqaabta ilaahay ee gaaladana subxana watacala ciqaab doona aakhira jirtaa inta suuragal ma aha marka taa iyada dhulkoosii ku jiraan iska ilooba sheekadaas caqli ma aha xagga kale cilmi sayniska iyo haddaan usoo noqono waxana dhulka hoostiisa beer kuma qoran kartid beer kuma beeran kartid hadduu ilahay kuu roon yahay waa radioactive ama wax dadka gubaya qorrax ma jirto ilaahayna subxaana watacaala muusan noo sheegin qorraxdu inay dhul kale ifiso aan ka ahayn dhulkeenin caadiga soo wax garteen maaha kolka ilaahay subxaana watacaala waxaad na ogaataan aayadan fiiriya alla markuu subxaana watacaala xaawiye aadan jannadii ka soo tuuray ee dhulka lagu soo tuuray waxaa lagu yidhi fiiha taxyuuna dhulka dhexdiisa ayaad ku noolaanaysaan macnaha dhulka korkiisa ayaad ku noolaanaysaa baa layidhi wa fiiha tamuutunna dhulkana waad ku dhex dhimanaysaan macnaha sida caadiga ah dadku dhintaan wa fiiha tamuutunna wa minha tubcasuun dhulkana ayaa laydinka soo saari doonaa soo ma aragtaa marka meel kaloo bilaadan ku noolaanaya ma jiro xataa soo ma ogdi spacekani waxaanay sheegaan waxba kama jiro waa lacagtumay luminayaan lacagtumay khasaarinayaan wax ka jira ma lahan bilaadanku halkanay ku noolaan doonaan halkanay ku dhiman doonaan waa dhulka korkiisa yaa halkanaa laga soo saari doonaa yowm albacsiga ama yowm alxisaabka ama yowm alqiyaamaha soo waxa garteen maa khiyaaray kolka logic maaha diinna maaha in muddo intaa leeg dad ku jiraan meel iska ilooba taas iyada okay waxaa kaloo jira xadiis nebigu yiri sallallahu alayhi wasallam aakhiro ayuu alla subxaana watacaala la hadli doonaa nebi aadan maalinka yowm alqiyaamaha waxaana ku dhihi doonaa oo aadanow addoommadaada awlaadaada
waxaa lagu dhihi doonaa kunkiiba 999 ka soo saar naartay gelayaan. fiiri waa 999 out of 1000. kunkiiba 999 qof, hal qof baa ka haray kunkiiba. waxaa la dhihi doonaa naartay gelayaan soo ma. kadib rasuulku markuu hadalkaa yidhi sala allahu calayhi wasalam, asxaabtii ayaa murgay, wejigoodii baa murug gashay, wejigoodii baa madoobaaday. kadibna rasuulku wuxuu yidhi sala allahu alayhi wasalam, innaga ma aha, idinka ma aha, waa kuwa kale, waa yaajuuju maajuuj. halkaa maxaad garantaa? halkaa miyaadan ka garanayn aadan ilmihiisa in 99% ay dadkaasi macnaha dadka yaajuuj maajuujka inay naarta gelayaan in yani haddaan dhinaca kale u dhigana miyaadan arag xadiiska maadan ka fahmayn in ilmaha aadan majoritygooda ama intooda ugu badani ay tahay faraca yaajuuj maajuuj. aniguna maxaan idinku yidhi adduunyada 70% dadka jira waa yaajuuj maajuuj. okay adduunka hadda 7 bilyan baa lagu sheegaa soo ma. adiga 6 bilyan iyo 8 bilyan laakiin 7 qaadanaynaa. okay 7da shiinuhu waa 1.5 bilyan. 1.5 bilyan waxa weeye waa 1 bilyan iyo 500 oo milyan soo ma. okay hal qabiil hal qowmiyad ka mid ah oo ah macnaha 90 intaaba ama adigu inkay macnaha 1 bilyan iyo 200 oo milyan shiinaha waa hal qowmiyadood la yiraahdo Hans. Soomaaliya inay badan yihiin. okay Hindiya iyagana waa 1.3 ama 4 ku dhawaad shiinaha saas way isleeyihiin. hadda hindida badan baa la iyagana 1.4 bilyan soo ma. okay intooda badan majority-ga iyagana waxa weeye waa Aryan Indians dadka la dhaho. Aryan Indians weeyaan. yaajuujka waa kuwaasina waa yaajuuj maajuujka. haanku waa yaajuuj maajuuj kuwana waa saas soo ma. okay waxaan idin sheegay macnaha saas oo kale Yurubiyaanka fiiri bariga Yurub iyo galbeedka Yurub, America, Latin America. waayo Latin America iyo saad ogtihiin iyo wadamada koonfurta America saad ogtihiin dadka tirada ugu badani waa cadaankii waxa weeye dhulka qabsaday ee la oran jiray Hispanoli ama dadkan Latinka la yiraahdo. Latin waxa la isku yiraahdaa dadka asalkoodu yahay Portugiiska iyo Isbaanishka. marka 80% waa dadkaas soo ma aha. okay intee leeg baa muslina Yurub? intee leeg baa muslina Yurub oo dhan 1% ma dhama muslim. marka laga fiiriyo macnaha Turkiga iyo Albania haddaad ka saarto kuwa xataa hadda inta si kala laakiin Yurub hadday ugu badato 1% kaliya ama no more than 2% ayaa muslina. Mareykankana 1% lagu sheegaa muslimka 350 milyan 1% ama 2% ayaa muslina soo ma aragtaan. Latin Americana 0.2 baa lagu sheegaa muslimka. kolka soo ma aragtay adduunkii oo dhan cadaanka ugu badan inay yihiin hadduu la guuray inay gaala yihiin isla markaana inay yaajuuj maajuuj yihiin. ogaada qabiilo badan waxaa jiray cadaan ahaa yaajuuj maajuuj ahaan jirin laakiin yaajuuj maajuuj baa yaa tirtiray iyaga xasuuqay. bilmatalan Romankii hore Greegii hore waxaasoo dhan waa la bedelay. dadkana bedelay. dadkani cadad caadi ma aha. waxay u tarmaan sida dooliga iyo ayaxa. alright halka xadiiska uu Allah subhanahu wa ta'ala aakhiro ku dhigi doono nabi Ibrahim andhe aba nabi Aadan alayhi salaam carruurtaada kunkiiba 99 ayaa aadi doona naarta. kolka asxaabtii murgeena nabiguna sallallahu alayhi wasallam ka arsa murugtu yiri inaga maaha idinka maaha waa kuwaas waa yaajuuj maajuuj. kolka soo ma aragtaan inay badan yihiin. kolka taa iyagana macnaha halkaasaan uga baxaynaa. suuragal maaha in dhulkooda ku jiraan. iska ilooba sababta laynooga qariyana waxa weeye waan idin sheegay boqortooyo ka mid ah boqortooyinkii muslimka xukumi jiray ugu yaraan 900 oo sano haddayna 1000 sano ahaynba ayaa asalkooda yaajuuj maajuuj ahaa. aasaasiyaashii Seljuug iyo waxaasoo dhan kulli dhammaantood aabayaashood yuhuud bay ahaayeen. iyaguna yuhuud bay ahaayeen. nin baa halkan ku qoray commentiga af turki buu ku qoray laakiin Google Translation baan kusoo bedelay for the record Turkish language kuma hadlayaa. okay waxaan isticmaalay Google Translator kadibna Soomaalidii edit baan ku sameeyay waayo Google systemka translation haddaad ka qaadato meel cid loo barbar ku qaarsiin. kolka waa inaad barato si edit loogu sameeyo loo habeeyo. marka ninkaas wuxuu sheegay in odayga Seljuugaha uu Yahuudi ahaa intuu aabiyiin ahaa intuusan islaamka noqon. intaas oo aqoonyahan yaa ay markhaati furaya. kolka dhulkooda kuma jiraan. taa iyada waan baabiinay. talabaad hadduu ilaahay khayr idin rooyaa ee ah macnaha inay yaajuuj maajuuj dhulku daloolo oo hadduu ilaahay ku rooyo North Pole laga galo South Pole laga galo taa iyadana wax kama jiro. labada dhinac adduunyada oo ah Arctic oo qoyiga adduunyada ama North Pole iyo anti-Arctic. waa ka horjeedkeeda opposite-keeda oo ah South Pole ama la yiraahdo Antarctica oo markaad South Africa iyo Australia iyo Argentina hoos uga dhaadhacda qaaradda aad gelayso hadduu la ku ciidamo ku nooleen marka laga reebo
maaragtay dad aan boqol qof dhammayn oo aqoon-yahano cilmi baaris oo meeshaa baara inkastoo la sheegay in taajiriinta adduunyadu ay bankare iyo dhufaysyo waaweyn ka dhisteen kulli waxa taajir oo dhan dhufaysyo ka dhisteen in case bay yidhaahdeen ama haddii adduunyada nugu lasoo dhaco inay meeshaa galaan laakiin waxaad ogaataa taajiriinta adduunyadu waa kuwa fisqiga iyo qoomuluudka iyo xumaanta iyo waxaan wada dhammaantoodna waa yajuuj iyo majuuj boqolkiiba 95 ama ugu yaraan boqolkiiba 90 kolka haddii ciqaabta ilaahay timaado waa sidii qoomkii reer thamuud oo kale ee nebi saalex ku yidhi annagu buuraha iyo dhagaxyadaasaan dhisannay haddii dhib kastoo yimaadeen halkaasaan ka gelaynaa ilaahay hadduu xumaan iyo halaag iyo ciqaab la damco cid ka baxsan karta ma lahan ilaahuma aad geshid guriga maarag gebigiisa oo ka kooban birta adduunyada ugu adag biraha oo la yidhahdo titanium okay oo xataa nuclearku aan karin ilaahay subxaana watacaala hadduu xumaan kula damco ma ka baxsan kartid kolka iyagu dee halaagii ilahay ma ka baxsan karaan waa sidaa qoom thamuud oo kale oo ogtin si loo halaagay hal malag baa ka qayliyey qayladii darteed wadnahoodiiba googo'ay dhagahooga dhiig baa ka yimid marka taasi waa taas waxaan hollow earth la dhaho ama dhulku inuu labada cirif ka daloolo oo saas oo kalaa iyadana waa suuragal inuu dhulku meelo daloolo leeyahay waayo bilmatalan waxaa lagu ogaaday hadduu ilaahay kuu roon yahay cilmi sayniska waxaa lagu ogaaday north pole ayaa waxaa lagu arkay xilli samara hadduu ilaahay kuu roon yahay dhir dhulka tropikaanaha ama dhulka kulaylaha dhirteeda fiiri ilaahay subxaana watacaala adduunyada juqraafi ahaan xataa dhulalku isku dhir maaha soomaaliyaan isku dhul ahayn dowlad deegaanka soomaalida geedaha ka baxaa isku dhir maaha jabuuti isku dhir maaha maaragtay waqooyi bari ama gaarisay dhulkaas isku dhir maaha kenya isku dhul maaha etoobiyada kale isku dhir maaha marka waxaa la helay dhirta ama geedaha ka baxa dhulka kulaylaha ayaa waqooyiga lagu arkay taana culimadu waxay ku sheegeen in somehow ama si uun dhulka oo daloola ay meeshaa ka soo baxday marka bilaadan sinaba uguma noolaan karo dhulka hoostiisa waana idiin sheegay waxa laynooga qariyana waxa weeye saddexda diimood ee maanta diinteena islaamka ee xaqa ee kariga ee jirta labada diimood oo kale waa kuwan kiristaanka oo diintooda kharribay iyo yuhuudda oo iyagu hortood kharribay saddexda diimoodba yaa xukuma miyaa taqaanaa qabiilada waxaa xukuma yajuuj majuuj qabiilada yajuuj majuuj ayaa xukuma kunkii sano lasoo dhaafayna saddexdaa diin iyagaa xukuma kolka wax alla wixii sirahaya ku saabsanaa amba been bay ka sheegeen kuwa beenta ugu badan sheegaana waa yuhuudda iyo hadduu ilaahay ku roon yahay qoladan maaragtay kiristaanka erigan gog an magog oo yajuuj majuuja waa hebrow gog an maygag ama gog an magog labadaba loo akhriyaa maygag iyo magog waa hebrow waayo waxay tahay qoladan bani israa'iilkii hore soo masar may degeneen 450 sano meelaha okay masaaridii hore waxay la luuqad ahayd soomaalidii hore luuqadda soomaaliga luuqadii hore masaaridu hal luuqad bay ahaan jireen boqorrada masaarida xukuma gaar ahaan boqortooyadii 18aadna soomaali bay ahaayeen qoladan aali fircoonna waxbay sumanayeen ilaahay uu nacdaladay saas oo kale xataa wixii soo moogay aali fircoon ka farcamay ee saas dulmiga waa la nasaqaad baa ku jirta kay qabiiladii aali fircoon xukumin jireen soomaalidu waa ka buuxaan soomaalidu xaqiiqdii 3 qowmiyadood ayaa ugu badan faracintii hore oo soomaalidu aad ugu jeedo ogow faracinta ayaa ka farcamay soomaalida bani israa'iil soomaali galay iyo carab soomaali galay soomaalidu 3 qowmiyadood iyo qowmiyadda afraad oo ah bantuuga ayay soomaalidu ka kooban tahay 4 qowmiyadood iyo soomaalidu ka kooban tahay dadkana maanta soomaali niraano cashiradooda uga sheekay marna waan ka sheekayn doonaa kolka yani waxa weeye yajuuj majuuj baa 3 diimood xukuma adduunyada kuwii muslimkana muslimkay xukumaan oo waa ogeydeen maaragtay Ottomankii Cusmaaniyiintii Seljuugii ka horreeyay mamluuk eriga mamluuk carabi waxa weeye waa Soomaaliga waa adoon waa askar Ingiriiskana waxa weeyaan waa slave soldiers waxa weeye waa askartii qabiiladii yajuuj majuuj ahaa oo boqorradii carabta oo markaa fidnoobay waa 1000 sano ka horeeya iyo 900 sano ka hor oo markaa fidnoobay ayaa nimanka Yurubiyaanka u yeedheen askar bay ka dhigeen aakhirkiina iyaga ayay rogeen kolka saas loo bixiyay mamluuk loo bixiyay asalkooduna waa waxa weeye hadduu ilaahay ku roon yahay waa turkig maaragtay Circassian dal dhaho Albanian waxaasoo dhacdo waa qabiiladii yajuuj majuujka Masar iyaga xukumi jiray waana ku wajibiyey Tataarkii ku jabiyey meel la yiraahdo Aynu Jaanuud oo ku taalo waqooyiga Falastiin kolka waxa weeye macnaha hadduu ilaahay idin roon yahay waa saas muslimka kuwaasaa xukumi jiray welina iyagaa xukuma waqtigaa ku sano ka hor jaamacatul azhar waxaas maaragtay shiici ahaan jirtay laakiin maaragtay ilaah baa ka kaxeeyey oo sunniga u keenay waddankan iiraan la yidhaha sunniga u ahaan jiray markuu iiraan sunniga ahaana waa markaa saxiix bukhaari iyo culimadeena waaweyn oo dhan halkaa ka yimaadeen
way isbedeleen labadaa waddan kolka macnaha saasaa taariikhda loo qoriyey waayo adduunyada 1,000 sano ka hor wixii ka dambeeya ilaa yowm alqiyaamaha waxaa xukumi doona waa yaajuuj maajuuj qolo markay baabado qolo kale ayaa baabi'i kolka taana taa weeye dhulka hoosta kuma jiraan dhulka hoostiisuna meelo bilaadan colony ama dad meelo degaan waxba kama jiro haddii bilaadanku maaragtay fiiriya hal xayawaankan maaragtay faraanfarka la yidhaahdo yaa wuxuu ku nool yahay dhulka moogtahay maadaamuu dhulka hoostiisa galo uu kan carrada soo sayra faraanfarkaas dhulka hoostiisa ku nool maad ogtihiin jirkiisu hal dhogora ama tina ama hadduu ilaadiin rooya yixa ma lahan yacni waa maqaarkii oo sidiisiiya sababtu waxay tahay dhulka hoostiisu waa kuleyl waana dab marka dhogor ma lahan dhogortu waxay ka timaadaa qabowga bannaanka tin ma laha waxa ma lahan marka haddii bilaadan halkaa la geliyo niyow wuu shiilmayaa wuu karmayaa dhulka temperaturekiisu caadi maaha maogtiin soviet unionkii ayaa hadda ka hor sovietkii hadda ruushka ayaa adigu ilaa hadduu ilaah kuu rooyahay adigu ilaa 50 sano ayaa dhulka ayay dalooliyeen 7 kilomitr 7 kilomitr waa wax weyn soo maa 7 kilomitr markii ay dalooliyeen yaa birtii ay geliyeen baa qaraxday way dilaacday way gubatay waayo xadiis buu nebigu wuxuu ku yidhi sal alla alay wasalam badda ha ku safrina ilaa idinkoo xajka ama cimro ama hadduu ilaah kuu rooya jidka ilaahay u dagaalamay maana ha ku safrina macnaha waxaan dan ahayn oo hadduu ilaah kuu rooya wax dan kugu jirta haddayna ahayn nebigu wuxuu sal alla slam badda ha ku safrina soo maa waa rasuulku wuxuu sal alla slam badda hoosteeda waxaa fadhiya dabka hoostiisana waxaa fadhiya bad kale mucjiso waa adduunya naga qarsoon kolka nimanka soviyetka markay qoleen waxay arkeen xadiiska nebiga ayaa xaqiiqsadeen waayo markay biyo ka baxeen fiir markaa dhulka qodo waa biyo dhagaxa markaa jebiso biyaa imaanaya macnaha meelo yaryar biyaha iyo saliiduna waxaad ogaataa oilku hadduu ilaadiin rooya iyo gaaska lagu sheego waxaas bilmatalan soomaalida waxay rumaysan tahay maadaama dhulka soomaalida inuu oil ku jiro haddii oilka la qodo carabta waxeedu soo dareeriyo maaha oilku waa haro ama war maaragtay waa haro ama war si loo yaqaano ama balli intaasoo kale qaar waa nus kilomitr qaar waa kilomitr qaar waa 100 mitr oo dhulka hoostiisa ah inta kalena ka xiran waa sababta loo yidhi ceelkana shidaalka ugu dhammaystay ama ceelkana wuu biyo yaray biyihii oo dhan waayo wixii hoos ku jira yaa yaraaday ee wax isku wada furan ma aha kolka khiyaari waxa weeye hadduu ilaadiin roo yahay yajuuj maajuuj lagu hoosguma jiraan yajuuj maajuuj waana la joogaan waqtigii nabigana la sii daayay sallallahu alayhi wasallam rasuulkaana inoo sheegay waxaan kaloo dhan waxa weeye wax kaba jiraan sheekhan yaasi qarni la yidhahdo waad ogtahay inuu yidhi anugu yajuuj maajuuj hadduu ilaadiin rooy wuxuuba yidhi macnaha wuuba beeniyey aayaadkii waa isagaa haddee culimada kale muslimiinta lagu leeyahay khan hadda khan muxuu yahay boqorkii ganji khan baa dhalay niyo waa turkic name khan macnaheedu waa boqor waa mongolian so khan oo dhan haddaad maqasho waa boqor saasay u dhigantaa soo moogid Pakistan DNA laga qaaday 20 sano kahor waxaa la ogaaday ugu yaraan 50 milyan oo qof inay directly ka soo jeedaan si toos ah uga soo jeedaan ninkii tartaarka boqorka ahaa ama mongolka ahaa loo jiray Khan kolka waxaan adduunyada haysta dhan niyo waa yajuuj maajuuj niyo waxaan shariicada diiday waa iyaga waxaan ribada wata waa iyaga kitaabka alle waxa hor diidan waa iyaga waxa hor taagan kuwan kale Afrikaanka ama Soomaalida muslimka waxaan oo madaxa laga haystaa waxa weeye nimankani waa akhiru zamaankii adduunyadu waqti fiican maaha kolka khiyaari waxa weeye macnaha yajuuj maajuuj waa saa kolka waxaan idin sharaxaya marka xadiiska nabiga sallallahu alayhi wasallam harada lag dabariya ayay soo mari doonaan yaan shaqadii baan hadda gelaynaa hadduu ilaahay yiraahdo okay khiyaari hadduu ilaahay idin rooyahay waa kanan hadda gelaynaa waxaan idin tusayaa maaragtay sida in badan xadiiskan loogu khaldamay ayaan tusayaa hadduu ilaahay yiraahdo waa xadiiskii dheeraa rasuulku sallallahu alayhi wasallam ugu warramayay fitnada cawr dajaal iyo saasoo kale tahay marka maanta waxaan qusaysaa intii ku saabsan hadduu ilaahay idin rooyahay fitnada yajuuj maajuuj aan ka soo qaadanaynaa kolka dajaal markuu saa yahay kadib ayuu nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam huwa kadalika macnaha saasoo kale markay tahay marka waxaa dhacday ida waxa allahu marka ilaahay uu waxyooday subxaana watacaala ilaa ciisa nabi ciise calayhi salaam isagoo alla kuleh subxaana watacaala innii anigu qad akhrajtu waxaan soo bixinayaa fiiri waxaan soo bixinayaa baa la yidhi waxaan soo bixinayaa bilmatelin haddaad magaalo ka baxdo shalay oo kale waxaad leedahay shalay baan magaalada ka soo baxay godkumaad xerrayn fiiri linguistry ama luuqiyan markaad fahanto xadiistan ayaad fahmaysaa waxaan ka hadlayo kolka lama dhihin god bay ku jireen lama dhihin saas alla wuxuu subxaana watacaala innii qad akhrajtu anigu xaqiiqdii waxaan soo saarayaa
yajuuj majuuj yaan keenaya weeye macnaha ama imaanaya alla subxaana watacaala cibaadan oo addoommo ah lii aniga ii sugnaaday oo anigu leeyahay laa yadaani akhyaari marmar akhriska markaa carabiga akhrinayo mawkiyaalka digriga igu yar masaas oo kale xuruufta ayaan marmar ka boodaa laakiin waxaan samaynayaa inaanan khaldamin insha allah laa yadaani oon cid iska celin karin liaxadin cid iska celin karin biqaatalihim dagaalkooda waxaa lagu yidhi faxaris kaxee baa lagu yidhi cibaadii addoommadayda ilaa duuri ama addoommadayda waxaad u kaxaysaa ood geysaa buurtaa la yidhaha buuru duur waa buur ka mida buuraha falastiin ku taalla iyo alla ku subxaana watacaala ku dhihi doonaa nabi ciise addoommadayda geey waxaan soo deenayaa addoomaan cid iska celin karin oon leeyahay waa yajuuji majuujiya xusuusta kadib waxaa dhacday kadibna rasuulka xadiiskiisa soo sii wada sal ly slam wuxuu yidhi wayabcathu allahu kadibna ereyga baa kala rabaa inaad fahmaan wayabcathu bacth waxa weeye waa bixin soo maydaan maqal macnaha markii uu qaabiil dilay walaalkii haabiil alla wuxuu subxaana watacaala fabacathahu quraaban waxaa loo soo saaray alayidhi hadduu ilaah kuurooye quraaban tuke fabacatha fiiri waa keenid wey wax meel ku xiran ma aha waa loo keenay macnaha kolka alla wuxuu wayabcatha allahu yajuuja wamajuuj ilaah wuxuu soo bixiyey yajuuj wamajuuj kadibna maxaa dhacday nebigu sal ly slam aayadda qur-aanku akhriyey ee suurat alambiya ku jirtay ee ahaad aayadda 96 oo ahayd wahum min kulli xadabin yansiluun wahum iyaguna waa yajuuj majuujka min kulli xadabin yansiluun waxay ka soo degayaan meel sarraysa way soo hoobanayaan sarrayntaana dhowr jeer baan idiin sharaxay waa dhulka sare ay ka imanayaan weeyaan ma aha inay barishu soo degayaan iyo waxaas kadib waxaa dhacday marka aayaddaa kadib markuu rasuulka hore sal ly slam ayaa wuxuu yidhi fayamuru fiiri ereygan baan doonayaa inaad fahantaan fayamuru af soomaali weeyaan way soo marayaan marid sooma taqaanaan marid almuru waa marid kitaabkayga af soomaali quraan ku jiraa ereygaasi macnaha fayamuru fiiri naxwaha iyo ereyada qaab dhismeedku man kala duwannahay ereyadii carabigii hore alcarab alfusxa la yidhaahdo haddaad taqaano soomaaligii qadiimkaa ama abwaanada ku gabi jireen oo kale dhib kulamaha inaad fahanto kolka fayamuru waxay soo marayaan weeyaan fayamuru markay meesha yimaadaan waxa weeye macnaha fayamuru waxay soo marayaan liawalihim kuwoodii ugu horreeyey calaa buxayrati waxay soo mari doonaan baddaasoo ah ama harana waa la yidhahdaa badna waa la yidhahdaa labadaba waana hara biyo macaan ogaada waa meeshana yuhuuddu ka helaan biyahooda macaan haradan tabariya la yidhaahdo ingiriiskan la yidhahda tiberia saan bilowga idiin sheegay waxay soo mari doonaan buxayrati dabariyatan harada ayay soo mari doonaan la yidhaahdo dabariya fayashrabuuna wayna ka cabbi doonaan wixii fiihaa wixii ku jiray harada ayay cabbi doonaan yani waa biyaha weeyaan nabigu wuxu sal ly slam yajuuj majuuj ayuu ilaahay soo bixin doonaa subxaana watacaala kadibna waxay soo mari doonaan harada tiberia la yidhaahdo xadiisyada qaar kalena iyaguna sheegaya webi bay soo mari doonaan webina waa runo way soo mari doonaanoo harada tiberia la dhaho webiga biyaha kusoo shuba waxaa la yidhaahdaa webiga jordan river waana sababta laga keenay galbeedka jordan river iyo bariga jordan river bariga webiga jordan waa waddankan jordan la yidhahdo erga jordan waa er yahuuda laakiin carabiga waxaa la yidhahdaa nahal urduniya urdun weeyaa la yidhahda soo ma marka barigaas ama sharqiga webiga dhinaciisa bariga waa waddanka la yidhahdo urdun ingiriiskana jordan la dhaho soo ma galbeedkiisana ama algarb nahar urduniya ama galbeedka west bank waa meesha inta badan ka maqasheen waxa weeye waa falastiiniyiinta west bank la dhaho dhulkaa yare kusoo haray dhulkoodii iyagoo ay lahaan jireen yuhuudan yajuuj majuujka hogaamiyaan ay ka qabsadeen right way fahanteen soo maa kolka labadaba xadiis buu yahay marka hore webigay soo mareen oo webigaana waa webiga keliya ee haradan tiberia la yidhahda biyaha macaan u keena marka way keeneen way cabbeen kadibna saasoo kale markay cabbeenna nebigu wuxu sal slam kadibna fayamiru fiiri fa'daas waxa weye waxa soo mari doona weeyaan waxa soo mari doona fa'du macnaha waa meesha ingiriiska laga yidhahdo will oo kale ama doonaa waan cabbi doonaa way cabbi doonaan way socon doonaan macnaha waa future tense ama kelimad النحو المستقبل معناه waxa la dhaha weeyaan fayamuru way soo mari doonaan macnaha tii hore fayamuru awaa'iluhum kuwoodii horeeyay ayaa soo mari doona calaa buxayrati dabariyatan
badii ama haradii dabariya soo mareen fayashrabuuna ma fiiha kadibna waxay cabeen wixii ku jiray meeshaas haladaas kadib maxaa dhici doona marka nebigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam wayamuru waxaa haddana soo mari doona aakhiruhum kuwoodii dambe markay soo maraan waxay dhihi doonaan nebigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam fayaquuluuna waxay dhihi doonaan waa raacii dambe laqad kaana bihadihi maratan maaan laqad xaqiiqe meeshan waxaa ku makaankan ereyga makaan Soomaalidu waxay tiraa ilmagaleenka hooyada waana aayad quraana oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala markuu bilaadanka keenay dhulka yaa la yiri dhulka makaan idin noqon doona meel ay ku degi doontaan soo ma aragtaan kolka makaan waa meeshan weeyaan laakiin hadda bihadi almarati ama waxa la yiri meeshan maratan waa mar af Soomaaliga maratan meeshan mar bay biyo ku jireen yay yiraahdeen tamacneedu waxay tahay biyihii Yaajuuj iyo Maajuujkii ayaa cabay marka intaas xadiiska halkaasaan ku joojinayna kadibna waxaa dhici doonta ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكونوا كدبنا markay saas sameeyeen adigu nabi ciise iyo muuminiintii la jooday ayaa meel bay ku dhuman doonaan ilaa uu maaragtay madax dibi ciidamo cunto soo maaha ayaa wuxuu ka qaalisanaan doonaa 100 diinaar uu nebigu markaa uu sifeynayana hadda ilaa 100 milyan oo dollar ku dhawaad way lacagtu way kacdaa soo maaha sicir barar marka halkaasaan ku joojinay xadiiska inta badan khayr waad maqasheen qolka marka aan fasirna marka meesha marka xadiiskani waa xadiiska ay qofka Soomaali yaqaano baan xadiiska lagu wareeray okay halka nebigu wuxuu sheegay sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri haduu leeyahay ruun yahay Yaajuuj Maajuuj baa meesha soo mari doona kuwooda koobaad iyo kuwooda dambe hadalkan ujeedadana waxa weeye arrintani waa arrin qaadanaysa ugu yaraan 1000 sano fiiri qisadii nabi nuux alayhi salaam oo dugtiin Allah subhanahu wa ta'ala 1000 sano oo konton dhiman ayuu qoomkiisa dhex joogay macnaha wuxuu dacwada waday risaalada waday 1000 sano oo konton dhiman oo ah 950 sano ma laakiin quraanka haddii 950 sano 10 qaadani laguma siin waxaan saacad dhammaynaya qisatu nuux oo dhan quraan ku jira saacad ka yar baad ku baran kartaa ku fiirin kartaa macnaha aayaadka lagu furdhiyo waa xigmad Ilaahay soo ma kolka xadiiska nabiga sallallahu alayhi wasallam sheegay waa silsilad waqtiga kolka ma aha inay hal maalin kaliya intay yimaadaan inay wixii dambiya cabiyaan raaca hore bilowgooda ilaa meel raaca ugu dambeeya waxa weeye yaa ka cabi doona macnaheedu waxa weeye tusaale ahaan waxa weeye ceel biyele ama war ama haro ama balli hadduu Soomaalidu say u taqaano oo geel iyo lo lagu soo daayay oo ay cabayeen 100 sano okay kuwii koobaad baa ka cabay kuwii kale ku cabay kuwii ugu dambeeyay ayaa qofkii looda iyo xoolaha wata wuxuu yiri warbaahintan biyaha horta koor ku jiray waa laga dhameeyay hadda laygii uu soo yaraanayaa wali ma dhamaan taa macnaheedu waxa weeye Yaajuuj Maajuujku layg tabariya 1000 sano ku dhawaad ay adigu hadda ma aqaan intay noqon doonto laakiin taariikhda si lagu sheegay qabiilka ugu horeeyay Yaajuuj Maajuujka dhulka barakaysan yimid waxay ahaayeen qoladii la oran jiray Crusaders-ka ama gaaladii qabsaday Baytul Qudus 200 oo sano ku dhawaad haystay uu haduu leedii rooyahay Salaaxudiin al-Ayyubi uu jabiyay soo ma aragtaan waayo fiiri waxaan idin sheegay Yaajuuj Maajuujku inay in badan oo kamid kristaanka galeen laakiin wali kamay tagin fidnada iyo wixii kuwan maanta iyagana way joogaan kuwooda xuna yuhuudi madaxa u noqdaan laakiin iyaga naftigooda waa Yaajuuj Maajuuj kale fidnadana way wadaan ninkii qoraaga Suuriyaanka ahaa ee bariga joogay oo aad loo dambeeyay wuxuu sheegay hadduu Ilaahay rooyahay Crusade-kii markaa joogay oo ah king Ingiriiska boqorkii Ingiriiska boqor kale Faransiiska oo maaragtay king of Jerusalem the guy wax saas loo oran jiray saas oo kala iyo lion boqorkii kale Ingiriiska waxaasoo dhan dhammaantood waa Viking bay ahaayeen waa dadkii Nordic loo oran jiray waa dadkii maaragtay Faransiiska lagu yiraahdo Normandy ama dadkii hadduu Ilaahay rooyahay Normans macnaha xagga North ka yimid waa Denmark waa dadkan idin sheegay Viking iyo Anglo-Saxon iyo waxaas ah way Jutes Angles iyo dadka weeyaan marka kuwaas ayaa lagu sheegay 1000 sano ka hor haystay Baytul Quds qabsaday inay yihiinba inay ahaayeen Ashkenaz isla markaana ay ahaayeen Yaajuuj iyo Maajuuj marka 1000 sano ka hor bay yimaadeen 1000 sano ka hor bay biyaha dhulka ka cabeen haddana markuu muslimku kiciyay hadduu la guurooyay 800 sano ka maqnaayeen 1917 bay yimaadeen ilaa hadda 1917 gaar ahaan 1948 markii statekan Yuhuudda la sameeyay Israa'iil macnaha
wixii ka dambeeyey way cabbayaan saasay u cabbayaan goor dambey kuwa dambe marka imaan doona raaca ugu dambeeya oo anigu qiyaas inay yihiin shiinaha ayaa oran doona meeshan like taberiya la yidhaahdo like tiberiya la yidhaahdo like dabariya af carabiga ama saas oo kale ah biyo macaan ama galiili la yidhaahdo magacaana waa la isticmaalaa jeclahay biyaha ku jiray ayay dhihi doonaan meeshan ma aha inay hal mar intay u socdaan sidii bahal oo kale ama dugaag oo kale inay hadduu ilaah ku ruo ama booyado biyo waaweyn inay biyo hal mar fuuqsanayaan ma aha sanado dhaadheer bay cabbayaan macnaha ma garata warkayga kolka xadiista badan oo nebiga sal ly slam oo taariikhi wax imaan doona oo cilmi qaybka haddii ilaahin ba cilmi qaybka yaqaana rasuulkiisana waa loo sheegay soo ma waa sababta nebigu sal alay wasalam waa xadiisyo badan oo aakhiro waxa dhici doona uu nebigu noogu sheegay waayo nebigu sal alay wasalam wuxuu la yimid waxyi buu la yimid caddayn buu la yimid nebigu ogaada waxaan qori jirin waxna ma akrin karin haddaad magaciisa u keento muusan akrin karin rasuulka sal alay slam taasina waa calaamad ka mid a calaamadihiisa nebinimadiisa iyo rasuulnimadiisa kolka waxa weeye xadiiskani waxa weeye macnaheedu kuwoodii ugu horreeyey fiiri waa ka nebigu wuxuu yidhi sal allahu alay wasalam hadduu ilahay kuu ron yahay macnaha meeshii wuxuu ahaa waa ka nebigu wuxuu yidhi sal allahu alay wasalam fayamuru waxay soo mari doonaa awaa'ilihum kuwoodii ugu horreeyey awalkii kuwii ugu horreeya soo mari doonaa calaa buxayri dabariya badday markay soo maraan fayashrabuuna biyo ka cabbayaan marka kuwii ugu horreeye yimid ilaa waxaan sheegay crusaderskii 200 sano haysay way ka cabbi jireen yuhuuddu markay timid waa kuwii ugu horreeyey haddana maaragtay ilaa iyo nebigu biyo ka cabbayeen buri sal ly slam ilaa rasuulka kadib rasuulku wuxuu yidhi sal ly slam aakhiruhum kuwooda dambe fiiri nebigu ma dhihin sabbay ku jiraan oo iyagoo socday cabbaya waxaa lagu yidhi kuwoodii hore iyo kuwoodii dambe taa macnaheedu waxay tahay 100 sano haddayna ku dhowayn ayay meesha imaanayeen hadda 1000 sanaaba laga joogaa markii ugu horreeyey crusadersku yimaadeen waxaad ogaataa dad bilmatalan zionista kuwan la dhaho oo zaayinka ah dhammaantood waa yurubiyan shaqo kuma le binu israa'iilkii hore soo moogtaas ama kuwa rumaysan kitaabkii towreed waa kuwan yuhuudda ee mudaharaadee la yidhahda anti-zion soomaaliga maraykanka ugu badan yihiin dhaha ilaahay waddankan uu noo carooday uu naga caydhiyey inuu amar ilaahay nagu soo celiyo maana ma ku soo noqonayno kuwaas oo kuwii towreed rumaysan laakiin kuwan yurubiyaanka kitaabkan buugga loo sameeyey talmuud la yidhaahdo ee iyaga loo geeyey weeye waxaan zionistaa lagu sheeganay waa firad caddaana caddaankaasna waa yajuuj majuuj kolka waa yajuuj majuujkii oo sheegtay yuhuud weeye waxaan doonaya baytulquds la qabsadaan waayo baytulquds kutubta hore waxaa lagu qoray hadba boqortooyada adduunyada ama waddanka ama qabiilka ama ummadda xukunta magaalada baytulquds ayaa adduunyada xukunta muslimku waktiga cumar ibn khadaab ayaa uu qabsaday baytulquds soo maa laga bilaabo cumar ibn khadaab ilaa intii ay haysteen oo 1900 hadda 1919kii muslimku super power buu ahaa marka laga reebo ilaa 200 sano ku dhawaad oo crusadersku ay baytulquds haysteen kolka way faashadeen saasay rumaysteen ingiriisku markuu qabsaday haddii la yuhuudi ka kicisay ay ka bedeleen dee ay xornimo qaateen say sheegaan 1948 yuhuudi waxay sheegteen inay super power yihiin baytulqudsna ma sii daynayaan ilaa inta nabi ciise ka imaanay calayhi salaam iyo mahdiga iyo ciidamadii calanka madow wata soo ma aragtana khayray kolka waa raacooda hore iyo raaca dambe waxaan rajeynayaa inaad xadiiskaa fahanteen waa kan hadda idin horyaala hadalka nebiga sallallahu alayhi wasallam uu yidhi kuwooda ugu horreeyay ayaa markay cabbaan ayaa waxaa imaan doona kuwii ka dambeeyey waa aakhiruhum kuwii iyaga ka dambeeyey weeye fiiri ma laguma dhihin laguma dhihin asaf aluula wasaf alaakhir safkii hore iyo safkii laguma dhihin waxaa la yidhi kuwa hore yaa imaan doona cabbi doona kadibna kuwo dambaa imaan doona oo dhihi doona meeshan biyo lahaan jirtay marka waxay hal maalin cabbayaan ma aha qof baa yidhi suuragal maa sheekow inay biyaha fuuqsaneen kolka yajuuj maajuuj baala geesi waaweyn maaha baala maaragtay dagaalo waaweyn maaha monster maaha not monsters man monsterro maaha waxan maaha waa dad caadiya dhulkanna hadda maxaa laydabariya ka socda laydabariya 9 milyan ee yuhuudda israa'iil degan 99% biyaha macaan waxay ka helaan harada kolka maxay kaloo sameeyaan israa'iil waad ogtihiin waddankan falastiin saxaro waxa soo ma soo sida sacuudiga oo kale ayay beero ka beereen liintay ka beereen khudaar bay ka beereen vegetation bay ka beereen ama cagaar iyo khudaar bay ka beereen xaggee ka waraabiyaan biyaha macaan marka haradani biyaheedu wuu sii gudhayaa waana sababta ay yuhuuddu u doonayso hadda koonfurta lubnaan oo biyaha qani ka ah sida webigan latania la yidhahdo kale inay qabsadaan biyuhu bariga dhexe haddaad joogi jirtay ama hadduu la guuro waqooyiga afrika macdan iyo dahab biyaha ka qaalisan kolka haradii way cabbayaan way ku qubaysanayaan beerihii bay ku waraabinayaan dadkan yuhuuddana saad ogtihiin iyo dadkan gaalada yajuuj maajuujka ilaahay subxana wa tacala wuxuu ku sheegay inay shaydaama yihiin waayo wuxuu yidhi alla subxana wa tacaala dadka israafka sameeya iyo mufasidiintu alla wuxuu yidhi waa akhwaanu shaydaan waa walaalihii shaydaanka
kolka dadkan adduunyada maadaama fasaadinayaan waxa dhan way cabbi doonaan biyahana iyaga cabbi doona ama ha ku qubaystaan ama meel kale ama beeraha ku beera ama saasa haradana way qalali doontaa kadibna kuwooda ugu dambeeya raaca ugu dambeeya oon qiyaasi inay shiinaha yihiin ayaa nebi ciise calayhi salaam soo weerari doona kolka markanay imaanayaan marka yajuuj maajuuj way imaanayaan dhulkan barakaysan maaragtay ila dhulkan oo barakaysan yahay ogaada waana aayad qur'aan ah alladii baaraknaa baa la yidhi waa dhulkan barakeynay markay imaan doonaan waa marka nebi ciise calayhi salaam kadib alle intuu soo celiyo uu dili doono dajaal dajaal markuu dilo shiinuhu waa super powerka markaa okay kadibna waxaa sababtaan u dhig waa shiinaha waxa weeye xadiis kalaa jira uu nebigu sal ly slam markay dhulka barakaysan yimaadaan waxay dhihi doonaan dadkii biniaadanka waan dilay ahlul ardu waan dilay inaa qatalnaa ahlul ardu haddana inaa nuqaatilu ahla samaa'i haddana waxaan la dagaalamaynaa oon dilaynaa ehelka samada ku nool kadibna waxay samayn doonaan buu yiri nebigu sal ly slam hubkooda xisaabahum hubkooda ama fallaadhooda ayay cirka u gemi doonaan kadibna iyadoo dhiig le ayaa loo soo celin doonaa oo lagu fidnayay soo maarigni markaan idin leeyahay yajuuj maajuujka gaaladan awooddan iyo hadduu la idiin rooyo waxyaalaha dheeraadka ee khiyaar ay helayaan waa fidno fiiri mucjiso markay tahay sida ushii nebi hadduu la idiin rooyahay muuse oo kale hashii nebi saalax oo kale kitaabkeenna qur-aanka waa miracle waa mucjiso alla ka timid laakiin markay dajaal iyo yajuuj maajuuj wadaan oo ay maaragtay wax kasta samaysanayaan wax kasta helayaan wax walba loo dhibiiraynayo waa fidno waana sababta inaad ka ordo marka sababtan marka shiinaha weli waxa weeye shiinuhu hadduu la ku rooyay yajuuj maajuuj saaxiib bay leeyihiin waxaadna ogaataan kacaankii shiinaha ee la sameeyey 1949 gebigiisaba yuhuud baa samaysay 10 nin ee la taliyaha u ahaa ninkii kacaanka waday oo la odhan jiray Mao Zedong la odhan jiray kulli yuhuud bay ahaayeen lacagta yuhuudda loo keenay dahabka yuhuud baa lahayd wax kasta iyaga lahaa teknolojiyada shiinuhu haystana waa teknolojiyada galbeedka israa'iil baa loo soo mariyaa kadibna albaabka dambe looga soo geliyaa kolka waddankan shiinaha la yidhahdo waxba riwaayadda arkina inay dad caadi iska dhigaan saasa waa 100% saaxiibka koowaad israa'iil ujeedaduna waxay tahay dagaalka saddexaad in galbeedka lagu jebiyo kadibna israa'iil iyo shiinuhu ay super power noqdaan israa'iilna waa waddan yar super power ma noqon karo laakiin maxay ku noqonayaan mataqaana waxay ku noqonayaan digital money soo ma maqashaan hadduu la kuru digital ID hadda ingiriiska ka socda soo ma aragtaan waxaasoo dhan waxaa lagu talagalay in adduunka dhan lacagta la baabi'iyo dahabkii waxaas dhan ay qarsadaan dadkay dhan telefoonka smartphone-ka ay wax ku cunaan wax ku cabaan kii murma sideedoo kala dhahana kuwan waa yajuuj maajuuj laga jaro hadda way fahanteen sababtan reynaan baadiyi iskaga dego rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam waqtigaas la joogo waa waqtigan hadda joogno bilowga ah wuxuu ku sheegay yajuuj maajuuj sababtu maxay tahay nebigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam waqtiga yajuuj maajuuj waxa ugu khayr badan midkiina aan iska dhaqda ee buuraha taga waayo haddaad farta taagta tiri anigu ahlu tawxiid baan ahay ama salaad subax reynaan tukado meel walba kaamirad baa taalla meel walba IA baa xukumaya wejigaaga la xukumaya wax kasta waa la fiiriyey yacni dadkii oo dhan waxaa laga dhigay addoon baa laga dhigay kolka soo ma aragtaan waa dajaal yajuuj maajuuj waxaad ogaataa boqorkoodu waa dajaal haddana dajaal baa gadaal ka fadhiya nin baa igu yidhi dajaal sheekh waxa kuu jooga anu cilmi malihi mana ogaan karo waxa weeye laakiin waqtiga nebiga sal ly slam nin baa soo arkay tamiim daari la odhan jiray oo qabiilada carabta ee masiixiinta ka mid ahaa ninkaas uu muslim rasuulku u yimid rasuulku uu sheegay sheekadii rasuulkana waa u rumeeyey muslimiintana wuu qudbeeyey waxaad ogaataa hadduu rasuulku rumeeyo waa wax ogolaansha oo xagga ilaaha ka timid sidaa darteed ninkaas uu la kulmay waa ugu jirtaa fitnada dajaal casharkayga uu la kulmay uu la sheekaystay sheekadiisa baan la yaabay dajaalka maalin bani xadiiska idiin fasiri doonaa waad yaabi doontaan macnaha kolkaan waxaan rumaysanahay dajaal weli banaankiis muu keenin laakiin meel buu ku jiraa waxaana isaga xukumaya waayo guulahan ay galbeedka yuhuuddu gaareen 500 sano la soo dhaafay wax bila aadan gaari kara ma aha subhanallah mucjiso maahane waa fidno macnaha iyagu miracle ay yiraahdaan mucjiso ay yiraahdaan laakiin inaga muslimiinta waa fidnadana waa dajaal kolka waxa weeye shiinuhu waa saaxiibka koowaad ee dajaal markii saaxiibkood uu nabi ciise calayhi salaam dilo iyaga ayaa imaan doona marka kuwa leh fallaadh baan gamaynaa waa shiinaha waayo yajuujka maajuujka maanta jira waa yuhuud iyo kristaan soo ma aha hada kuwa muslimka haddii iska daa iyaga waayo kuwa muslimka waa tawxiid kuwan kale marka jooga haddii ma dhihi karaan ehlu samaa oo waa ilaahay subxaana wa tacaala iyo ciddiisa iyo addoommadiisa samada joogay yaan tooganaynaa ma dhihi karaan waayo way og yihiin ilaahay carshigiisu inuu kor yahay fiiri dadkani gaalaha noqdaan rasuulkeena haddiidan laakiin ogaada in badan oo ka mid a alle wuxuu ku sheegay subxaana wa tacaala minhum almu'miniin mu'miniin baa ku jirta yidhi wa aktarahum alfaasiquun badankoodna waa faasiqiin waa aayad qur'aan ah soo ma aragtaan kolka kuwa mu'miniina ku jira iyaga oo inaan aweyn innaga marka ma yeeli doonaan in samada hub loo diro iyadoo ujeedadu tahay allo samaa in la dilo kolka laakiin iyaga waa kuwaas
وشينها شينوهنا وددان دين لهين سادوكتاي أو البوري هاين بوري سادوكتاي إن ديما إلهي جريتان سي غانا معها وهو فكرة وإسكان وهنديو كله وإسكا عوان عادي مشركين لكن هذا ويبكسي دريانو طلابا كلي هرو قادينو waxay yiraahdeen communism baan nahay shuuci baan nahay shuuciyaduna maxay yihiin waa atheist shuuciyiintu waa atheist waa maxay waa dadkan jiritaanka ilaahay rumaysnayn ba kolka dadaan jiritaanka ilaahay rumaysnayn laakiin dhalashahaan yaajuuj iyo maajuuj way ku oran doona oo nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam falaadooda ayay gamayaan miyaad soo ogtihiin okay falaad ma gamayaan marka falaad alwaaxa hamoodin miyaad soo ogtihiin ereyga missile waa latin macnaheeduna waa falaad kolka missile-koodii hadduu hypersonic yahay iyo hadduu si kale yahayba iyo hadduu teknolojiya cusub oo leeyahay waa isla missile soo maaha missile-koodii ba gabi doonaan ereyga missile-na waa falaad Soomaalitan rasuulka nabiga hadalka rasuulka sallallahu alayhi wasallam inuu sax yahay nabiga wuxuu falaad bay gabayaan soo maaha ereyga falaad ereyga falaadna laatinka ay luqadahan ingiliishka iyo waxaan oo dhan teknolojiyada language-ka loo isticmaalo iyo caafimaadka waa Greek iyo soo maaha iyo latinkuna falaada kor loo gamo ama wax lagu rido u yaqaan missile marka missile bay gabayaan waana hadalkii nabiga si nabigu suu run sheegay yaa marka ogaan kara in falaad ay gamayaan oo saas oo kala ilaahay kaliya og cilmi qeybka Soomaa laakiin rasuulkiisii buu u sheegay rasuulkuna saas uu noo soo gaarsiiyay soo khayr ma aragtaan kolka waxa weeye dadka ugu dambeeyay sababtaan u waa shiinahana laba arrimood weeyaan haddaan marka la ku dulmar ku sameeyo marka kooban iyagoo dajaal saaxiib la dajaal uu nabi ciise wadagtii nabi ciise calayhi salaam yaa dili doona nabi ciise dili doona kolka maadaama boqorkoodii la dilay waa inay dhulka soo weeraraan waana malaayiin waana sababta uu xadiis qudsiga Allah subhanahu wa ta'ala nabi ciise ugu oran doono adoomo waxa soo celinaya ciise celin karin waayo xadiise kala ahayd in nabi ciise dadku wataa yihiin riwaayadaha qaar waxay sheegeen 800 qaarna 1600 saas oo kala macnaha qaarna 1200 marka aaw muslimiinta labada bilyan hadda waa baabeen adduunka waa baabeeniyo cirbad baa lagu dhameeyay cirbad sunayki cirbadan socota ma waxaad moodaa joog baad moodaaniyo ciyaar baad moodaa qofka ilaahay cimri dheer si arki doona Allah naga badbaadiyo laakiin boqolkiiba 30 waxaad ogaataa waa biyo ingiriiska waxa la yiraahdaa basiibo waxa weeyaan waa daawo dadka lagu tijaabiyo qofna mid runa la siiyaa midna qof biyo kolka ilaahay intii Soomaali qaadatay ee shoogan daawanaysa walaalayaal ilaahay biyaha idinka dhigo ilaahay idinku daaweeyo ilaahay caafimaad Allah idinka dhigo idinka awlaadiina Allah idin badbaadiyo waa shiinaha marka maadaama nabi ciise alayhi salaam 1600 qof muuminiin ka badan uuna wadan hadii min bilyan isku celin kara waa malaayiin way kadib markay meesha yimaadaan oo is yiraahdaan ard waan dhamaynay dadkii adduunku waan dhamaynay siisa isku qaban nabi ciise alayhi salaam 1600 ugu badnaan dad la joogaan kuwana ay leeyihiin dadkii adduunka waan dhamaynay waxay ku leeyihiin dadkii ardiga waan dhamaynay soo ma aragtaan haddana dadku tirada adduunka 7 bilyan ciido ma noolaniyo way dhameeyeen si Soomaali xadiiskii Soomaali xadiiska kale ah tirada muslimiinta nabi ciise la joogta waa ugu badnaan 1600 Soomaali kan isku qabanayaan markay dadka dhameeyaan oo ama cirbad ama biological warfare ku dhameeyaan fiiriya inay biological warfare ku dhameeyeen xadiiskan baa muujinaya nabigu sallallahu alayhi wasallam markay saa dhahaan dadkii dhulka waan dhameynay haddana waxaan dhameynaynaa ahlu samaa dadka samada cid joogta ayaan dilaynaa oo missile-koodii baa loo soo celin doonaa oo hadduu ilaahay ku rooyay dhiig wata fiiriya hadda ninka la yiraahdo Elon Musk wuxuu sameeyay soomowid inuu sameeyo rocket ama missile intuu duulo uu space-ka ka soo shaqeysto haddana soo noqdo meeshii soo istaaga khayray isku xidhka ma aragtaan marka missile waxay samayn doonaan sabada tagi doona hub ridi doona adduunyo qarxin doona kadibna isaga naftigiisa soo noqon doono marka isaga naftigiisii oo dhiig wata ayaa loo keeni doonaa soo ma aragtaan markay waana fidnaya markay saa sameeyaan oo nabi ciise dadkiisana ordaan oo ay buurti galaan ayuu nabi ciise iyo dadka muuminiinta ilaahay bari doonaan inuu ka qabto waxan Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu samayn doonaa nabiga xadiisku sallallahu alayhi wasallam wuxuu soo diir doonaa dirxi sida ay xookala oo lagu sheegay inuu yahay dirxiga idaha sanka ka soo dhaca geela dirxiga sanka iska soo dhaca moogta idahana waa saas oo kale kadib dirxiga lagu soo diray qoortu ka qaniini doonaa fiiri waa biological warfare waa biological soo dadka iyagu cirbadii biological kumay dhameyn iyagana tii kale Allah ku dhameynaya subhanahu wa ta'ala cirbadin hadda bilaabatay xaqiiqiyan boqolkii sano la soo dhaafay dadka cirbad lagu durayay cirbadaha ilmaha lagu duro markay dhashaan oo dhan aakhirka autistic iyo ka dhigaan cudurka autismka cirbadaha keena waana sababta madaxda Soomaalida ee xamar ku dhalatay ama Xasan Sheekh Farmaajo Deni akhyaartaas oo dhan haday magaalo ku dhasheen waa dureeyeen marka waa autistic dadka aan la marin waxay ka dishaa qaybta diinta garashada T-cell baalda T-cell waa qaybta garashada iyo reasonka macquulnimada ani leeyma talaalin baadiyan ku dhashay
okay siyaad bar lama talaalin baadiyo ku dhashay balidin ku fiirsada dadkii madaxda ahaa ee magaalada hadduu xamar ku dhashayba cirbada waa la talaalay hadduu dhashay 1940 kadib waayo waa la keenay waddanka Soomaa waa kitaab kale khayray marka la geli doonaa laakiin marka cirbadii suntii ay dadka adduunyada ku dhameeyeen oo biological ayuu iyagana subxaanahu wa ta'aala biological ku dili doonaa dalxiiska markuu qaniino dhammaantood habeenkii wada baqtay doonaa iyagoo bilyanisa alright xataa ma ogin in marka dagaal saxaad kadib ay hadduu ilaahay ku rooyay yajuuj maajuuj is urursan doonaan hindida waxaan oo dhan kadib la dhihi doono muslimka dila muslim we don't know in muslimka lagu baxsan doono in badan oo muslimana oo iska cabsanayana ay u geli doonaan iyaga waayo dajaal culimo badan oo muslina raaci doona kolka markii ilaahay subxaanahu wa ta'aala habeenkii markuu dhameeyo ayaa maaragtay muslimiintii oo nabi ciise la joogo calayhi salaam yaa waxay dhihi doonaan waxaan u baahanahay qof ilaahay dartii naftiisa u siiya oo ilaahay naftiisa ka gata oo shahiida inuu daadego oo bal soo fiiriyo waxay saaka ku baryeen iyo wax xaaladoodu say tahay waa yajuuj maajuujkii ninkii wuxuu muslimka waxa uu iman doonaa mise waa iyagii wada baktiya oo uraya adduunka dhan wada uraya oo meesha jooga kadib markaasuu ku dhihi doona muslimiinta bushaaraysta waxa weeye yajuuj maajuuj hadduu ilaahay diin roo yahay waa la dhameeyey maaragtay wayna baaba'een meeshiina way ka baxeen wuxuu dhihi doonaa kaalaya kadib muslimiintii xoolahoodii bay isayn doonaan iyagoo wax kaloo cunayn jirin ee baktigooda meel kasta yaallo barwaaqa imaan doonta xoolahoodii ba caano heli doona wax walba kadibna markay saa tahay muddo la joogo nebi ciise yaa dhiman doona calayhi salaam kadibna hadduu ilaahay diin nebigu wuxuu sal slam ilaahay dabayl buu soo diri doona oo qof kastoo mithqaala darata min aliimaan in yaroo iimaana qofkii qalbigiisa ku jirto dabaysha ayaa nafta ruuxda ka qaadi doonta kadibna adduunka waxaa ku hari doona faasiqiin keliya ku hari doona faasiqiinta marka ku haraana haddii saacaddii oo ku yeeri doonta muddo kadib marka hadduu ilaahay diin roo yahay markaasi ma marka ilaahay sheegay oo daabatil ardi loo soo dirayo daabaduna waa eega waa mashiinkan computerkay sameeyeen AI-ga marka alla dhihi doono subxaana wa tacaala suuratu naxl aayadii suuratu naxl ku jirta ayadii subxaana wa tacaala falama waqaca calayhim alqawlu bacathnaa lahum daabata alardi alla wuxuu subxaana wa tacaala markii kelimadii ku dhacdo alkelimad macnaha ereyga markii kelimadii ku dhacdo kelimadaas waxaa loo jeedaa waxa weeye akhyaaray waa yacni waxa weeyaan maaragtay waa kelimatulkufri baa gaaladii ku dhici doonta kadib markaasaa la halaagi doonaa way la hadli doontaa iyadoo la hadlayso calaamadeynayso oran doonta aayaadka ilaahay baad ku gaalowdeen aayaadka nabaad ku gaalowdeen marka daabaduma markaasa miyay ka horreysa ma aqaan laakiin boqolkiiba boqol waxaan ubaa anugu daabadu inay tahay AI-ga waxaan kombyuutarada waayo hadda dee 10 sano kadib adduuna nebi ciise iman dadka dhan adduunyada populationka ugu yaraan boqolkiiba 50 way dili doonaan shaqaalaha wax walba ka dhan inta soo hadhana eliidka ama taajiriinta oo yajuuj maajuuja biniaadanka way adoonsan doonaan dajaalna gadaal buu u fadhiyaa waana sababtuu yiri sallallahu alayhi wasallam magaalooyinka ka orda waqtiga dajaal ee baadiyaha taga dadka biniaadanka way adoonsan doonaan hadday bilaabeen bilmatalan hadda toddobaadkan waxay ka hadlayeen falastiiniyiinta in marka xamaas hubka laga dhiga ama la xasuuqo horena waa loo baabiyey falastiinka in soo hadha in AI data center laga sameeyo meel dadka lagu kontrolo AI baa ilaalinaysa waa maxaabiis waxa galbeedka laga yeeli doona adduunyada kale iyay qase ka samaynayaan qasana waxay dhaheen waxaan ka samayn doonaa meel canshuur laga qaadin oo kambaniyada waaweyn yimaadeen oo kulli waa yuhuud kulli waa yajuuj maajuuj oo meesha marka xabsiyo waxay samaynayaan AI bracing system concentration camps ama meelo xabsiya oo dadka lagu ururiyo ayay doonayaan inay ka sameeyaan falastiin inta yara soo hadha la gumaysto ama la gaaleeyo fideogii waa daawateen AI oo Trump soo geli hadda kahor oo falastiiniintii oo maaragtay naagii sida carabtii hore beri jaahiligii beri dance waxa la dhaha samaynaya ama saas oo kala fiirig waa la gaaleynaya inta kalena la xasuuq doona waa say leeyihiin laakiin amarka ilaahay baa kii ku dhintaan hadda waa shahiid kolka waqtiga dajaal waa bilowday wallahi wa billahi wa tallahi macnaha si aan dad badan u qanciyaan ma aqaano waxaan ogaataa culimo badan oo muslim ayaa dajaal raaci doona gaar ahaan culimadii lacagta jecleed iyo waxan way raaci doona nabigu sallallahu alayhi wasallam dajaal waxaa la socda buuro rootiya la socda miyaad garanaysaa ma aha buuro waaweyn oo rootiyo inuu tunka ku wataniyo laakiin dajaal iyo systemka u shaqaynaya isaga waa taajiriin lacagii dahab bay tunka ku wataan macnaheedu maxay tahay taas macnaheedu waxa weeye tusaale maanta fiiri wadamadan uu dajaal iyo systemka gaalada ka jiray yajuuj maajuujka galbeedka Yurub iyo Yuhuudda iyo waxaas iyo intii iyaga la shaqeeyay Imaaraad iyo Sacuudi waxaan oo dhan la shaqeeyay iyaga soo taajiriin ma aha soo maalqabeen ma aha dadka kale ee tawxiidka sida Soomaalida oo kale soo baqtigu xalaal ma aha miyeedana arag xadiis nabi rasuul leeyahay sallallahu alayhi wasallam yajuuj dajaal waqtigiisa
dajaal macnaha buurada u wataa rootiya dee fiiri galbeedka magaaja dadku qabata soo cunto lama cuno soo raashinka meel walba ma yaal haddee soo dajaal maaha xagga kalena sow qoomluudkii iyo carruurtii yarayd oo gabdhihii wiilal laga dhigay iyo wiilashii oo haddii ila ku ruray gabdho laga dhigay soo waxaan nijaasta ma wataan ma aragtaan inay dajaali system tahay khiyaaray maaragtay arrintu waa saas waqti fiican maaha harada biyaha la cabayo ay yajuuj maajuuj cabi doonaan oo ah xadiiska ugu caansan ee Soomaali ka taqaan waxaan rajeynayaa in sharxaadaas idin gashay marka la daan ku celiyo waxaan wax hal mar dhacaya maaha waa silsilad taxana kuwooda ugu dambeeya ayaa dhihi doona war meeshani biyo lahaan jirtay oo hadda ka hor baa laga cabay waa saas kolka waan idin sheegay sababta shiinaha uu yiri oo shiinuhu macnaha ilaahayna ma rumaysna magaciisa ku dili doono ee dajaal saaxiib ay leeyihiin kolka khiyaaray anigu waan qanacay 100% yajuuj maajuuj adduunkana la joogaan meel kuma aasna meel kuma jiraan waxyaabo badan oo loojiga maskaxiyana waa in tusay xadiisada waa idin fasiray xadiiska kale ee muujinaya markaan idin leeyahay 170 waa iyagana hadii aakhiro xadiiska nabiga yiri sallallahu alayhi wasallam ilaahay baa nabi aadan alayhi salaam ku dhigi doona carruurtaada soo qabso kunkiiba 999 ayaa cadaabka aadi doona markii aduule guuray carabta muslimiinta ah ay argagaxeen nabiga wajigooda akhristay baa rasuulku yiri sallallahu alayhi wasallam idinka maaha waa yajuuj maajuuj waxaan idin sheegay maanta wadamo intaasoo bilyan fiiri adduunyada 6 bilyan ayaa gaala afrika ma ogtahay haaf waa muslim haafna waa gaalo sooma waa kristaan sooma okay adduunyada kale oo dhan haddaad fiirsato muslimku waa 2 bilyan adduunkana waa 7 bilyan sooma 5 bilyan iyo badh adduunyada waa gaalo ku dhawaad soo maaragtaan 5 bilyanna hadduu leedin roo yahay boqolkiiba 80 waa yajuuj maajuuj muslimka jirana carabtu waa 400 oo milyan ugu yaraan 300 oo milyan waa turki dhalashahan yajuuj maajuuj kolka yajuuj maajuuj waxa weeye waa dhalasho ma aha hadduu leedin roo yahay diin maaha haddii waxaan idin sheegay casharka ka horreeyey in gaalka ugu xun gaalada uu muslimi karo uu muslimnimadiisa Allah aqbalay hadduu tawxiidka la yimaado nabi ibraahim calayhi salaam waa ogtiin aabihii gaal buu ahaa mushrik buu ahaa weliba isagu kuwa mushrikiinta waaweyn buu ahaa waa sanamkuu samayn jiray cadowga ilaahay buuna ahaa soo maa haddee ilaahayna wiilkiisii oo ibraahim ah calayhi salaam wuxuu ka dhigtay khaliilullaahi saaxiibkii dhow ee ilaahay ayuu alla ka dhigtay saaxiibkii kolka dadkani waa bini aadan wayna muslimin karaan wayna gaaloobi karaan laakiin fitnadu waxay la socotaa kuwooda gaaloobay xataa kuwooda muslimay anigu waan la yaabanahay waa dad u jilicsan hadduu ilaahay idin roo yahay gaalnimada iyo fisqiga waxan xataa kuwoodii muslimka ahaa waxa shareecada iyo kitaabka hortaagan waa kuwooda muslimka ah khayr soo maaragtaan waxyaaba iga yaabeen waxa kamid ah fiiraan taariikhdan nimankan Yurubiyaanka aad baan u bartay qabiilka uu ka cadaansan yahay ee uu blue iska yahay ee wax la dhaho pale skin ama maqaarkiisu ka cad yahay ayuu ka gaalsan yahay wuuna ka fog yahay macnaha ayuuna uga fog yahay rumaynta ilaahay iyo hadduu ilaahay ku ruuxay xaqa waa dad isla weyn waa dad kibirsan macnaha anu foorumyo badan baan ku qoray hadduu ilaahay ku ruuxay dacwadii waxaan suurad aayado quraana oo luqadda ingiriiska aan soo qaaday aan ugu qoray cadaanku ka cadaansan yahay iyo ka nacib yihiin ilaahay iyo jiritaankiisa ilaahay iyo jiritaanka diinta islaamka ilaahayna ma rumaysnaba kolka waa yajuuj maajuuj 100% kuwan kale ee kristaanka ama xataa qaar badan oo yuhuuda waxaa jira macnaha yajuuj maajuuj laakiin modereeda ama dhexdhexaada marka iyaga waxaa la dhihi karaa ninkastoo kristaanatiga la kharribay laakiin weli haddana aayada ilaahay baa ku jira waa nabi wuxuu sallallahu alayhi wasallam la tu'minu ahlul kitaabi wala tukadibu rasuulku sallallahu alayhi wasallam ee kitaabka hana rumaynina hana beeninina rumaynina oo waxa laga yaabaa waxay sheegayeen inuu yahay beenta samaysteen ee aayadka ilaahay ku bedeleen hana beeninina oo waxa laga yaabaa waxaan ku sheegayo inuu aayada ilaahay ee kitaabka tawreed ama kitaabka injiil yahay marka khayaarisay yihiinba waqtigii yajuuj maajuuj baa lagu jiraa adduunyada maanta aragtana 70% waa yajuuj maajuuj 30% soo harina waa afrikaanka madow oo gebigooda afrika dhan waa 1 bilyan laakiin marka lagu leeyahay afrika 1 bilyan ma ogtiin nimayo ilaa 200 milyan oo waxa ku jira waqooyiga afrikana taariikh horan ku sheegay masaarida 80% waa turki wadankan tunisia la yiraahdo 90% waa turkiga cadaan dad fandaleeda degay saas oo kale macnaha algeria waa turki baa u badan saas oo kale wadamada carabta oo dhan waana sababta in qofka duuna dhaarka iskiin ahayn sideen oo kale sida Soomaalida oo kale inuu yajuuj maajuuj yahay uga shaki way dadkan way tarmeen xadiiska 99% la macno weyn buu leeyahay haddaad fahmaysaan kolka khiyaaray yajuuj maajuuj dhulkooda kuma jiraan meel kale lagama jiraan adduunkana la joogaan
waa kuwan xukuma waa kuwan shaydaamada ah waa kuwan UN ta fadhiya waa kuwan fiir security councilka 5 wadan baa fadhiya 5tuba waa yajuuj maajuuj oo Mareykanka waa Ruushka waa Ingiriiska waa Faransiiska waa Shiinaha soo moogid xataa hubka nuclearka inuu yahay nuclear club waa yajuuj maajuujniyo waa yajuuj maajuuj club dowladii kale lagu arko kurku waa banaanka Iiraanna laba arrin baa loogu diiday marka koowaad waa muslim marka labaadna yajuuj maajuuj uu ku yar yahay soo moogid dowlad kale oo yajuuj maajuuj shaqo ku lahayn nuclearka hadday ag baraan waa qaybta hubka ayaa nuclear energy waa haysan kartaa waa kurka banaanka khayr soo maaragtaan marka waqtiga yajuuj maajuuj baan ku noolahay cashar yar kale haddaan mar kale ku daro intaan ka bixin bilowga adduunka ilaahay subxaana wa tacaala adduunka wuxuu dhaxalsiiyo xukumi jiray ugu yaraan 4,000 oo sano 5,000 oo sano qowmiyadii loo jiray xamitiga oo ah dadkii hore Soomaalida hore ka soo jeeday dadkii ay Soomaalida ka soo jeedo saas oo kala masaarida hore dadka koonfurta Hindiya dega xamitiga xukumi jiray Fircoon Namruud waxaan oo dhan saas ay ahayn way kibreen way qooqeen ilaahay xukunkii waa ka tartaray mar labaad waxa loo dhiibay dadka Samiidka la yiraahdo ama dadkii Sham la yiraahdo Sham iyo Samiidka hal magac midna saas weeyaan way luqadda Hibrooga iyagu saama karaan shacbay dhahaan marka hadduu leeyahay guriga kuwaas waqtigii Nabi Muuse laga bilaabay inay Samiidku adduunyada xukumaan ilaa ay khulafadu raashidiintii ahayd Cabbaasiyiinta waa kuwii Carabta ahaa ee qarnigii hadda miilaadigan hadda 2021ka markuu ahaa qarnigan hadda 21aad markuu ahaa qarnigii 11aad dhamaadkeedii may qarnigii 10aad dhamaadkeedii ilaa qarnigii 12aad iyo soo afjarmeen khulafadii ugu dambeysay ee Samiitiga ahaa ee Carab ahaa waana Cabbaasiyiintuna waxay soo afjareen khulafadii kale ee Carabta ahayd muuminiinta ee la oran jiray Umayyiinta saad ogtihiin bani Umayya qabiilka la yiraahdo iyo bani Hashim nabiga qabiilkiisa sallallahu alayhi wasallam waa walaalo rasuulkana bani Hashimka Abu Sufyaan iyo Umayyiintu waa abtirsiinta saddexaad rasuulka sallallahu alayhi wasallam waa dadka ugu dhow nabiga sallallahu alayhi wasallam waana Umayyiintuna waa dad badan oo ilbeedkii tirtiray saad ogtihiin Xuseen bin Ali kulli marka Cabbaasiyiinta naftigooda oo ku abtirsada Cabbaas bin Abdul Muttalib oo nabigeena adeerkiisa maaragtay oo nabiga adeerkiisa sallallahu alayhi wasallam iyaga naftigoodu in badan bay tirtireen albeedka waayo xukunka la diiday kolka khayray waxa weeye maaragtay kuwii labaad ee xukumaana waxay ahaayeen Samiitiga saan idin sheegay waqtigii maaragtay Seljuug baa soo afjaray qarnigii 10aad miilaadigan hadda dhamaadkeedii marka laga bilaabo qarnigii 12aad ilaa iyo dhamaadka adduunyada waxaa xukumaya wiilkii saddexaad Nabi Nuux alayhi salaam carabiga la yiraahdo Yaafis ingiriiska la yiraahdo Jaabed fiir waa taariikh dhaba idinkuna soo fiirsada ayaa adduunyada xukumaya marka yajuuj maajuuj waqtigoodii baan ku jirnaa bartamihii baan ku jirnaa waan dhex dabaalanayna waxaan iyaga wata fiiri hataa marka nabigu leeyahay sallallahu alayhi wasallam yajuuj maajuuj marka la soo daayo adduunyada dhan bay ku fidi doonaan yaa adduunyada ma taqaana xadkeeda yaa sameeyay 95% waxa xuduud jirta adduunyada ingiriiska sameeyay British Empire baa samaysay oon idin sheegay inay yajuuj maajuuj ahaayeen Faransiiska 5% gaana waa Faransiiska iyaguna waa in sheegay qabiilkii France loo oran jiray yajuuj maajuuj marka waqtigoodii waxaan aragtana khayray waa fidno yajuuj maajuuj wallahi waqti fiican kuma noolin arrimo fiican ma ahan saa ku qanca khayr baan rajeenayaa wixii khayr iyo wanaageed iga baratay hadduu la ku rooyahay comment ka samee wixii kale dhaliilan leeyahay si edeb iyo anshax leh oo khiyaarnimo igu sheego walaalnimo oo Soomaalinimo meeshan sheekhnimo iyo urdu ku hadlaya maaragtay idin hor fadhiyo walaalkii Soomaaliya yaa hor fadhiya khayr wa salaamantii intaan markale kulmi doono sida Cabdiraxmaan Sheekh Xasan oo idin leh assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh